iska codaynayno dib isaga codaynayno taw ku baxaya waxaanu ka tashanay oo ku codaynayna ku taageerina waxaana ka tashan iska codaydii way naga soo dhamaatay Siciid Jibriil Xasan oo warbaahinta kula hadlay gudaha magaalada Cerigabo ayaa waxa uu beesha uu ka soo jeedo ugu baaqay shir oo beeshaasi dhawaan yeelan doonto isagoo dhanka kalena baaq u diray xukuumadda Soomaaliland xisbiyada mucaaradka iyo muxaafidkaba isagoo arrimahaasi iyo arrimo kale ka hadlayna Siciid waxa hadaladiisa kamid ah sida tan bismillaahir rahmaanir rahiim wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad amma ba'd maanta shirkaygan jiray wuxuu daaran yahay dhowr qodob oo ay ka mid yihiin baaq aan u dirayo beelweynta Baasanbuur ee degan Cerigabo gobolka Sanaag iyo hoggaansameeyo xukuumadda iyo xisbiga kulmiye baaqan ku horeynaya beeshaan anu ka soo jeeday Baasanbuur waxaan u soo jeedinayaa baaq degdega shir degdega oo ay kaga tashanayaan aayahooda urbajoog iyo qolqoljoogba inaanu saga nimaadno inaanu ka tashano aayahayaga iyo danahayaga iyo deegaankayaga taasi waa tabaaqa waxaan yara xusayaa waxyaabaha aanu ka tashanayno waxaa ka mid a geedi socodka siyaasadeed ee Soomaaliland ee xisbiyada ku wajahan 30 sanadood baan ku soo jirnay xisbiga kulmiye haddii aanu ku soo jirnay waxaan loo arkay inaanu aamuska ku codayno waxaan soo jeedinaynaa oo aan baaqa aan soo jeedinayo aan ku sheegaya inaan aamus dambe ku codaynayn ee aanu xaqeega u doonayno dadkayga iyo deegaankayga xisbigaanu 30 sanadood ku soo jirnay ee aanu gacmaha maran ka joogno ee na arki waayey laga bilaabo maalintii doorashada madaxweyne Muuse Biixi doorashadiisii aanu soo saarnay ee uu soo baxay kadib taageerayaashii xisbiga iyo isma hayaan xisbigi way islaayihiin waxa la isweydiinayaa war xisbigii maxaa helay xisbigii kulmiyana waxaanu leenahay waa codkayga taw ku baxaya codkaygu iska codaynayno dib isaga codaynayno taw ku baxaya waxaanu ka tashanay oo ku codaynayna ku taageerina waxaana ka tashan iska codaydii way naga soo dhamaatay gudoomiyaha xisbiga wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan iyo wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaahin gudoomiye ku-xigeenka labaad iyo wasiirka caafimaadka Xasan Maxamed Gaafadhi beesheedu way ka tashanaysaa kii aanu masiirkayga ku raaci lahayn ee aanu ku taageeri lahayn taanu dib isaga noqonaynaa ninowna hayskaayasin taanu iskula noqonaynaa idinkoo naga raaliya taanu iskula noqonaynaa ninowna ha ku soo talagelin tala isku duuban ayaanu xisbi ku raacay waxaan ku darayaa intaa beesha raggii aanu hoskatuurada lahayn ama aanu kala axsaabta lahayn waxaan u sheegayaa maanta war waxaas way soo dhamaadeen maanta mid keliyaanu nahay danbaa reer guuraabaa layidhi dan ayaa reer guuraa dhanka kalena waxa uu siyaasigu ugu baaqay bulshada Soomaaliland iyo qurbajoogta inay ka qayb qaataan abaaraha ba'an ee saameeyay guud ahaanba Soomaaliland dhanka kale waxaan ugu baaqayaa qurbajoogta iyo qulquljoogta iyo ganacsatada inay gudma degdeg u fidiyaan dadkeena abaaruhu ay haleeleen ee maanta abaaruhu hayaan oo aan la eegan cid u maqan ma jirtaan inay ahayn ilaahay ka soko warsamkaaf Cabdirashiid Aadan goobjoog TV Cerigabo